ciidamo boqolaal ah oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa ka soo degay xeebaha Garmaal, Garacad iyo inkastoo aan la xaqiijinin Qandala. dad badan oo Soomaaliya waxay isweydiinayaan war ciidamo shisheeye sheeganaya inay xeebaha Soomaaliya joogaan sidee bay doomo rag hubaysan saaran yihiin u soo dhexmareen. midda kale maamulada Muqdisho iyo Garowe markiiba waxay bilaabeen inay isku eedeeyaan sababaha ay ciidamadani u yimaadeen goobahaas. laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay maxay al-shabaab talaabadan u qaadeen. marka hore goobahaas waa goobo aad ugu habboon jabhadeynta, waa buuraley biyo leh doog leh oo qofkii raba inuu meelahaas joogo una u baahnayn wax badan inay dibadda uga yimaadaan. tusaale ahaan Sayid Maxamed Cabdilla Xasan markii uu la dagaalamayay gumaysigii Ingiriiska xarumo aad muhiim u ah buu ku lahaa meelahaas. sidoo kale dhalinyarada Soomaalida ee sanado ka hor maraakiibta soo afduubi jiray halkaas ay ku soo xidhan jireen maraakiibtooda. dhinaca badda iyo barigaba aad bay u adag tahay in laga soo weeraro haddii aad ciidan hubaysan tahay oo goobtaas ku jira. dadka qaar waxay sheegayaan maadaama oo al-shabaab aynan koonfurta awoodii hore ay ku lahaayeen aynan ku lahayn in ay rabaan inay goobo kale samaystaan si haddii xagga looga adkaado ay ugu gaban karaan meelahan. laakiin dadka xogogaalka u ah waxay sheegayaan in ay sababo kale jiraan. bilo ka hor waxaa jirta in koox ka tirsan al-shabaab oo uu hormuud u yahay Sheekh Cabdiqaadir Muumin ay ku dhawaaqeen inay ka baxeen kuna darsameen kooxdan isku tilmaanta dawladda islaamiyiinta ee ka dagaalanta bariga dhexe. al-shabaab marnaba raalli kama aha koox kale oo islaamiyiin inay goobahaas ka soo baxaan. marka si ay uga hortagaan ayaa waxaa la leeyahay ciidamadaas ay u geeyeen meesha. ta kale suuragalka ah waxay tahay ciidamo waxaa jira al-shabaab ka jooga Galgala oo in muddo ah dagaalamay. ciidamadaas cadaadis badan baa la soo saaray bilahan dambe. marka waxay u geeyeen boqolaalkan dhalinyarada ah inay kuwaas xoojiyaan. waxa kale oo suuragal ah inay ugu talagaleen in cadaadiska ay kaga qaadaan ciidamada al-shabaab ee jooga Galgala oo iyaga xooga la soo saaro kuwaasna ay u nafisaan. talaabada dhul balaadhsiga ah ee ay al-shabaab qaadeen waa xeelad cusub oo aan laga filaynin. markiiba weeraraa lagu qaaday dagaalana way socdaan. dabcan dad shacab ahna way ku dhiman doonaan meesha. laakiin lama ogaan karo inay al-shabaab sii joogi doonaan meesha iyo in si degdeg ah looga adkaan doono. dagaalkan ayaa bilowday kadib markii 14 bisha Maaj ee sanadkan ay duulaan cad ku soo qaadeen kooxda argagixisada ee al-shabaab deegaan xeebta Garacad oo ka tirsan gobolka Mudug. laamaha ammaanka dawladda Puntland oo ka duulaya nabad ku soo dabaalida iyo la wareegida deegaanada argagixisadu ay soo gaareen ayaa bilaabay howlgal joogto ah oo helista xogtoodu ay ku howlanaayeen laamaha sirdoonka Puntland iyagoo ku howl jiray helista xogta halka ay ka yimaadeen tirada ay yihiin ujeedkooda iyo saraakiisha hogaaminaysa. mar qura waxa ka bilowday deegaanada ay shabaabku maleynayeen in ay ku ladi karaan si ay ugu faafaan qayb kale ee dalka howlgallo ay ku midaysan yihiin xogaga difaaca Puntland. waxaana howlgalkaas bilaabay ciidamada sida gaarka u tababaran ee ciidamada daraawiishta, ciidamada birmadka, ciidamada BSF, ciidamada BIA oo wadajir uga howlgalayay dagaal dhinaca dhulka ah. soomajestayaasha Puntland wixii ay dhigeen waxay cashar u noqonaysaa cadow walba oo Puntland soo haweysta. waxay sidoo kale hoga tusaaleyn u noqonaysaa shacabka Soomaaliyeed oo ay tusinaysaa inay dagaalami karaan iyagoo aan gacan ajnabi isku hadlayn. madaafiicda darandooriga u dhaca iyo kuwa ridada dheer ee Puntland ayaa lagu hubsanaya god walba ay burcadimeedku naflacaare u galaan. waxaa sidoo kale ciidamada dawladda ay ku guuleysteen godoomida kooxadani waxa ay noqdeen kooxdani kuwa mar walba hankooda uu ahaa mid aad u jabay. dagaalkii ka dhacay aaga deegaanka Puntland
ay ka soo qaadeen dhowr jiho ayaa ciidamadu adeegsanayeen madaafiicda ridada dheer kuwaasoo la sheegay inay u adkaysan waayeen kooxda ku fashilantay Puntland waa al-shabaab saraakiisha ka mid ah godoominta taakulada kooxdan ka soo gaari lahayd dhinaca badda iyo marinada ay maleynayeen inay ku baxsan karaan inaan tagno maanta toga suuj oo ah halka ay hawsha sida tooska uga socotay toga suuj oo ka soconayo howlgalka lagu soo qabqabanayo maleeshiyaadka shabaab ee xeebaha bariga Puntland ka soo degay ayaa waxa gaaray mas'uuliyiin sare oo ka socda dawladda Puntland mas'uuliyiinta booqday deegaanka uu howlgalkan ka socda waxa kamid ahaa xildhibaano ka tirsan dawladda Puntland maamulka gobolka Karkaar Cabduqaadir Saciid Carshe Dhaqaaje duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan Dheere taliyaha booliska gobolka Karkaar Axmed Muuse Yuusuf Jaqanaf agaasimaha madaxtooyada magaalada Qardho Cali Baashi Saciid Muuse iyo xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda magaalada Qardho Cabdirasaaq Cali Cartan ciidanka dawladda Puntland lana dagaalamayay kooxda shabaab ayay gaarsiiyeen sahay ka kooban shidaal 2 neef oo geel iyo 50 neef oo ariya ciidanka sahay safar waxyaalo badan marka waxaan markaa u mahad celinayaa sida ciidanku eeganka u yahay cadawgana dalkooda uga difaacayo haddana aan u jeedno buuraha xeebta saaran ee toga suuj oo ah halka ay ku hareerayeen ciidamada dawladda Puntland goob god ah oo ay ku jiraan kooxda maleeshiyaadka ka tirsan shabaab qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda Puntland kuna sugan halka uu dagaalka ka socdo waxa ay faahfaahin dheeriya naga siiyeen sida ay wax u jiraan khasaare baan ayaa gaaray maanta kaliya inta khasaare gaaray inta dhimashada gaartay hadda maanta 20 waa xalay sidoo kale doraad sidoo kale shalay sidoo kale doraad sidoo kale intaas ah khasaare oo meesha gaartay waana la arki doonaa insha Allah haddii hoos loo degtana waa imaanaysaan oo waa duubi doontaa kooxda shabaab ayaa 16 bishan ka soo degay xeebaha bariga Puntland gaar ahaan xeebta Garmaal oo ugu yaraan 10 kiiloomitir dhanka koonfureed uga beegan toga suuj kooxdan shabaab oo doonyo uga yimi koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa galay god weyn oo ku yaala toga suuj gudihiisa markii ay halkaasi gaareen
ciidamada difaaca dowladda Puntland. maleeshiyada shabaab oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray dagaalka ay la galeen ciidamada dowladda Puntland waxa ay isku dayeen inay ka fagtaan goobihii ay difaaca uga jireen kuna yaalay gudaha Toga Suuj waxaana ciidanka ay ka dileen 7 dagaalyahan. tirada khasaaro dhimasho ee shabaab gaaray ka la isku daro waa 42 dagaalyahan halka kuwa dhaawac ahna gacanta ay looga dhigay. ciidamada dowladda Puntland ayaa sheegay inay gacantooda ku jiraan maxaabiis ay leeyihiin shabaab waxaana ay daba joogaan firxadka ay sameeyeen shabaab. ugu horeyntii magacaaga ku bilow. buruuj baa la magacaya. dhamaystir. buruuj cumar maxamed. magacaaga xariiqiga. xaraki ma balhiba. intee jirta? 43. 43 sano. intee sanad al-shabaab ka tirsanay? 2 sano. 2 sano. haye labada sano ee aad ka tirsanay al-shabaab maxaad qaban jirtay? waxba ma qaban jirin magaalooyinkan iska joogo walaayati waxaan shaqo ma qaban jirin macnaha nin odayo ciidanna ma ahayn shaqo kale tan lama dirsan. hadda sabab uga tirsanayd qaab noocee baad uga tirsanaysaa haddaan shaqana lagu dirsan ururkan aad ku jirtay? waxaa iska jira dadka ka yimaada gobollada tan oo kaleeto ama Puntland ama Somaliland oo kaleeto si ay wax u fahmaan walaayad kale sida muxaadaraad ka dhigeystaan duruus ka socotay iska dhigeystaan oo iska dhex joogaan markay muddo joogaan qofku ilaa uu muddo la ogaado oo xaaladiisa la fiirsado shaqo looma dirsado. dadkii shaqada loo dirsado dadkii hore weeye maxaakiimta iyo dadkii waayada hore weeye nin jadiidiya oo cusub cid shaqo u dirsatay cid wax ku aamintaa midna. haddaan shaqo lagu dirsanin sidee maanta ciidamada dowladda ku soo qabteen? ciidamada dowladda waa shaqadii koowaad laysoo taas weeye tay koowaad weeye tani. haa waaye 43 sanaad jirtaa waxaad dagaal ku soo qaaday dad Soomaaliyeed shacab Soomaaliyeed dhiig Soomaaliyeed baad u soo tafaxaydatay inaad daadisid daada adoo jira iyadoo san diintii meel ay kaaga banaysay aysan jirin maxay tahay wax kugu kalifay? waxay u kalifay anigu waxaan doortay ma ahayn inaan Puntland ciidan u soo kaxayo ciidanka anu ma soo dumin kharashna ma soo gelin tababarna kama saarin xeebta iyagu ku faylsan baa la doontaa saar ciidanka 2 sanad joogtay meeshan sicmada qaado doontaa saar ciidankan. sida la ajligeed ma la isdhihi karaa maadaama aad 2 sano ka tirsaneed haddana aad adigu amba ciidanka aad barkar shaqadaadu waxay ahayd basaasnimo? maya basaasnimo ma ahayn anu basaasnimo kuma shaqeynin doonta saar baa la ciidankan kana deji markay meel tagaan waxaan anu Puntland ma tagi karo mamnuuc baan ka ahay mana u socdo waxaa lagu yiri haddaadan tagi hayn Puntland shaqaan ka qabsanayna waxaad u joogtay meeshaad cadeyn doontaa sida taxtalan warhaan baan ku soo aaday meeshaan anigu khiyaar aan doortay anigu iyo awood aan ugu leeyahay kuma aan iman. haddii aadan naftaadiiba aadan adigu xukumi karaynin intaada la dilo ma waxaad ka doorbideen inaad naf dishid adigu sameeyay aaminsan diinta say isku tiin? diinta wax badan kama aqaan waxaan ku tukado salaada ayaa noosaa. waaye soo ma ogid inaad qof islaam dhigiisa aadaatay dambiga ay leedahay? waaga qof aan dhigiis la daadiyo inay banaaneen mid xaq darro lagu daadiyaana marka uu ku dambeeyay soo ma ogid? macquul ha qof xaq darro lagu daadiyo dhigiisa oo aan bari. maxaad ku doorbideen marka haddii maanta lagu yiri taadaan dilanaa in adigu naf kale aadashid oo aad dagaal ku soo qaad? ma badilin anu naf kale ma dilna doonta dadka ka dejibaa la yiri meel bay u socdaane. dabcan dagaal baa lagu soo qabtay. yaa dagaal baa lagu soo qabtay bilaash lagu soo qaban. dagaalkaanu markii meesha la yimid waa ka harayba qolihii aan la socday meel baan iska saaxday dagaal nama galay baan ku hor cid naxbad kuma ridaayano. maanta maxaad aaminsantahay? maanta maxaad aaminsantahay adoo da'daas in aad ciidamada gacanta dowladda ku jirtaa maxaad aaminsantahay maanta maxaad filaysaa? wax ilaahay qadaro baan aaminsanahay الله كوكل صونا وحو قدرنا وامسنا
كيف؟ ما أمسع ما الأسع أنه نقام بأنه كدونا إيش أن نود جيتهم نعم ورم عبدوا طلب يا أنا قرأ أكاونت أنا أنت إيش هنقول أنا كجرنا أنا كذا قال لنا أنا عنو غير أيود بيد أنا عنو غير أيود بيد بلو برتان جود جن لكن بلي أنا كلش بلو برتو ورنا كو عيال يرى نلقى كحيم جاي بلو سوق الآن عندنا الدولة أنا لقبتي أنا كو بدنا نلحري من أول شغلين يدين مسوي يدين أنا اللي من أول شغلين يدين اللي مسوي أقولك ما كنت جريدي هذا ليش شغلين عندهم هذه لحب ولا سوى كم منه يسدد شغال واحد ما أنا أنت لا اللي خاصة لكن بيربط من اللي سوق الأجيد قال لك عشان أنت صاحب سيا كجر لكن أنت اللي شغالين عيد السدد بلا كه دجال ما يقولين مت كان من وحمل له شيء جمال مال هذه دون اللي سكان كان صار مالهم صعني مال كلام كلوين ما كه قرأ رجع صوت قرأ كوا صاي واحد موطن صاي واحد سايد موطن تمر يبريس براون بالكي تير لا وركا كودن جديدا نص صارنا دونت نص صارنا دونت كتكن قدان قلنا ما والله قايم ما قرنا والله واحد زيد دون صارنا ما هو ترين بان سيدي تونجر نور أحمد هاجي نور أحمد هاجي نور أحمد هاجي قريلي يا لو بلوت عمل لو بلوت وأيسو كهين ميل توبر كسودة لما أي كينن توبر كوا لما ذي وأنت لا يسوى ولا أنت لا يسوى درين وحبرش لو وضع يستعيدين وأيسو تشكيلين وأيسو خفالي أنا وحول الجرا وأيسو ودن والد كي صنع غسل تلفون كو إيقاظا وأيسو ودن إلا والد كي ماشين جو موجا يا علي نصوصو أنا اللي حسن عملوا هاي أنا إذن قلت ماشي تكجر بواك صباي وإسديبي إذن كلا أيوة قد كجرانا مصوتاكي قد يا وإسديبي عندنا إسديبي نفسي بستولة صوتا أمير كمركا مدحان كاجونا دقاق سميست أسكنا أنا ما هو هبين أو صلاة صبح أو رصاصة إلى أسم ماشين كصباح أنا أقول يا أميرك أوليت يا الله وارد أوليت أوليت لهم وقانا أنا ما أكلم مشيها أسيقا إنك إيدينك سوكا حيب أسيقوي إيدينك هل يعني أول سجل إيدين كرت إيدين بدن وهاي سدح بقول عمل وهاي لكن هل هي أنا أو اللي بسوق لحضر اللي حسن عمل وهاي إذن كهات كسب بجلب حقيس
dhinacaas heer dheer. bismillaahi raxmaani raxiim sidaa taliyuhu sheegay maanta dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka waxaa sharaf u ah inaanu ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland halkan uga dirna maanta sanad military iyo mid kale oo aan ugu talagalnay inay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada maalmahan dhow gaar ahaan kuwii ku biiray oo meel ay maanta ku gabadaan ay la'yihiin waxaanu u mahadnaqaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida taliyayaashooda iyo saraakiishooda iyo dableydooda oo nafta u huray dalkoodan inay difaacaan inay cadowga kala dagaalamaan ciidanka Soomaaliyeed waa ciidanka ku dagaalama duruufta ugu adag ee ciidan uu argagixiso kaga hortago waad aragtaan taliyuhu ma haysto bullet proof ma haysto askariga kale saa ula dagaalamaya shabaabna isagoo aan bullet proof haysan buu dagaalamaa halka adduunku iyagoo qalabkoodu u dhan yahay haddana ay ku adagtahay inay argagixisada jebiyaan ciidamadeedu waxay jebiyeen argagixisada iyagoo logistic uu ku yar yahay saadku ku yar yahay mushahaar aan muddo qaadan aan haysan bullet proof ay xabadda iskaga difaacaan ayay jebiyeen waa u mahadnaqaynaa waxaanu argagixisada u sheegaynaa Soomaaliya meel lagu dhuunto inaanay noqon doonin way og yihiin sida hadda ciidamada qalabka sida u diyaar garoobeen sidaasay marba meel ugu cararayaan laakiin waxaan leenahay gabaad dambe Soomaaliya kama helaysaan iskaga taga waxaanu leenahay kuwa Soomaaliya u dhashay ka faa'iideysta cafiska madaxweynuhu fudiyay ka faa'iideysta wali qofkii Soomaaliya cafiska waa u furaya qofkii ajnabiyana meeshan xirad dambiilo ku dhuunto maaha waa la dilaa ama waa iskaga tagaa dalka waa lala socday sida uu taliyuhu sheegay laakiin waxa la moodayay markii la ogaaday inay telefoonada iyo meesha ka gooyeen waxa la moodayay in wax u soo degayaan ciidanku diyaar buu ahaa in haddii wax u soo degaan oo meesha waxay u tageen baa la baadhay loogama baran inay guurimaad intaa leeg sameeyaan marka ciidanku wuxuu ku hayay iyo dawladduba inay ogaato waxa ay u tageen xaradheere gaar ahaan markaa way yaraan waad ogtahay masaafo dheer bay habeenkii guuraan marka waa lala socday laakiin lama filayn inay guuri doonaan oo xagga tagi doonaan waxa la islaam markay meesha isku urursadaan in lala dagaalamaan la doonay mowqifka Puntland waa la cadeeyay madaxweynaha ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka ka hadlay su'aashan wax badan baa igu soo celcelisay haddaan kaftan ka dhigo wasiirka amnigu dabcan markuu maqlay dalkii shabaab baa soo galay waxa la yidhi canaan ka yaab cidna kama leexdo ayuu wuxuu isiri war mas'uuliyaddan iyaad la ciirsataa midhaa wuxuu isiri 4.5 baa dawladda iyo waxay isku hayeen iyo Puntland mas'uuliyadda dawladda federaalka kula qaad laakiin dagaalka annaka nagala dhaxeeya al-shabaab iyo al-qaacida iyo ka Puntland kala dhaxeeya isku mid waay marka waana mowqifka Puntland waa la cadeeyay wasiirkuna waxaan leenahay mas'uuliyadda waa shabaab waa dalka oo dhan baa isla qaaday dawladda dhexe dawladaha maamulada maragtay dalka ka jira iyo kulli waana laga sifaynaya dalka waxaanu mar labaad ammaanaynaa sida ciidamada xoogga dalka ciidamada Puntland iyo shacabka reer Puntland ay uga qayb qaateen dagaalka bulshada waxay sanadkii aqoon noqonayaan howlgalkan ciidamada ay galeen bisha maarso afar iyo tobankeedii ayaa waxaa ka soo degay marsada tangaabad shantii galabnimo iyo bankii kooxaha cadiimeeda oo wata dooyo saaran oo gaaraya
toddoba laakiin qaar gudbeed oo ugu gudbeen suug inta kale halay ku soo degay waxaa ka soo degay 420 qof oo burcadnimada oo la oran jiray guutada la oran jiray Khalid bin Walid la baxday oo ummadda Soomaaliyeed oo degan oo fursad dhibaato badan iyo ciidamada ilaalinta Soomaaliya oo shaqadii inta kadib ciidamada Puntland iyo dowladda Puntland markii ogaatay arrintaas soo diristay sida ugu dhaqsadan ayaa looga jawaabay sida ugu dhaqsadan ayaa lagu diyaar garoobay sida ugu dhaqsadan ayaa la isugu keenay ciidamadii sida ugu dhaqsadan ayaa howlgalka ku bilowday maalintii 15kii waxay ahayd diyaar garow 16kiina howlgalku wuxuu ka dhacay suud isla markaasna halkana dhinaca kana degmada la yiraahdo xaafadda galab ayaa ciidamadu diyaar ku ahaayeen 17 ayuu ka dhacay howlgalka iyada howlgallada kala duwan oo ka dhacay bidiyada laga hortagayay waxa ku dhacday madaxweyne ku cusbaa intii ay jireen aysan arag howlgalka ciidamada dowladda Puntland ay galeen ee qalabka sida waxa la yiraahdo howlgalka danab ayaa la yiraahdaa howlgalka danab marka oo dhacay bisha 17keedii 3:25 daqiiqo ka dhacay degmada Galab meesha la yiraahdo badqabo la yiraahdo waxa laga gudbiyay khasaaraha lagu gaarsiiyay burcadnimada maalintaas dhimasho 34 qabasho hal khasaaraha ciidanka dowladda Puntland dhimasho 12 dhaawac howlgalka danab sanad 20kii bisha 7 subaxnimo bilowday oo howlgalka ugu dheeraa ugu muddo dheeraa ugu khasaaro badnaa ugu baabi'in badnaa cadawga wuxuu bilowday halkii saac ilaa 4 galabnimo subaxnimo halkaas burcadnimada waxaa laga dilay 114 waxaa laga qabtay 10 maxbuus 114 kaas oo ku jiro ninkii uu ahaa madaxda burcadnimada watay uu ku jiro halkaas uu ku dhintay isaga iyo qaar kale oo wixii sheeganayay amniga sheeganayay meesha sheeganayay khasaaraha ciidanka dowladda Puntland mujaahidiinta ka hortagaysa burcadnimada maalintaas waxaa 12 dhimasho 40 dhaawac howlgalka danab ku xigay howlgalka danab oo ka dhacay meesha waxa ka guuday meesha ka dhacay howlgalkii hore inama sheegin waxa la yiraahdaa magaceeda waxa la yiraahdaa kurda farul baa yiraahdaa magaceeda kurda farul ayuu ka dhacay howlgalkaas hore 114 ka dhigatay burcadnimada ummadda Soomaaliyeed dibta iyo xasuuqa badan ku hay howlgalka danab oo ka dhacay Caduuraley iyo agagaarka magaalada Garaacad area ka dhacay maalintaas ay maanta firdeen maalinta hore ay jabeen maalintan ay firdeen oo ay cararka ahaayeen Caduuraley ayaa goobta ugu dhisahay laakiin goobo badan oo kala duwan oo agagaarka magaalada Garaacad ayaa waxa ka dagaal ka dhaceen dagaalkaas wuxuu bilowday 19 bilowday gelinka hore ilaa 3:15 daqiiqana waa u socday kharaska burcadnimada dhibaatada iyo dhimashada khasaaraha burcadnimada gaaray gooba maalintaas wuxuu ahaa dhimasho 60 qabasho 3 iyo 40 dhinaca khasaaraha dhinaca ciidamada mujaahidiinta dowladda Puntland maalintaas wuxuu ahaa 5 dhaawacna waxaa 7 howlgalka danab gabagabadiisii dhimasha guud cadowga waxaa ka dhintay burcadnimada dhinankooda culowda oo Soomaali baabiiska waxaa ka dhintay 208 howlgalka 208 qof baa kaga dhintay aagan bay kaga dhinteen aaga Garaacad dhimashadu qabashadu waa 46 markii la isugu 46 qof oo la hayo way qabashadu way fiirsan tahay dadka waa dad jaha wareeray way kala tageen way firdeen dagaalkii u baaheen ina waxa laga tagay
dadkii kale aan dhulka aqoon baa laga tegey dad walba nafta iyo bixi baa ka dhacday dasin uu tii galay baa fuudku dabaasheen ayaa meeshaas ka dhacday khasaaraha guud haddii la isu geliyo khasaaraha dhinaca puntland gabagabadiisa dhimasho 20 mujaahid oo baa shahiiday 60 dhaawac okay waxaa ka qabanay agab ciidan waan ka qabanay agab ciidan oo qoryaha kala duwana oo ciidanka ah guud ahaan tiradooda isku laga qabsaday ururka argagixisada al-shabaab iyaga hortooda ka hadlayna anoo qofna xabanayno haddii laydin qabto ma wax dhibaato oo laydin geysaba idinku dhacay intaad xirnaydeen insha allah idin haddii laydin qabto ciidamada puntland la qabteen ma qof la jadilay baa idinku jira ciidamada puntland ma idinkaa soo aaday mise iyagaa idin soo aaday uma marnimay horta been inaan ku hadal mana rabno qofna inaan khayaano mana rabno inaan qof dulmino ciidamada puntland iyo dowladda puntland iyo dadweynaha puntland uma joogaan inay cid dulmiyaan waxay u joogaan ilaalinta amniga puntland dadka ku nool meel kastoo ay joogaan dadkuna nooma kala suntana annaga qof sumad noogu qoran tahay ma jiro ummadda soomaaliyeed inteenaan qof aan af soomaali aqoon miyaa idinku jira ma waxaa ku jira qof ajnabi ah marka soomaali baa dhibaato ku haysaan soo marka maayo ajnabi baa dhibaato ku hayaan raadiyaasha ka sii daynaaye soo inagu dhibaato iskuma hayno idinku dadka kuma haysaan askarta meesha joogtana dadka waa inay celiyaan ku ekaada xagga dadweyne baabuurta ayaan loo iman biliis
taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari gaashaale sare cabdixakiin maxamed yuusuf ayaa maanta ka hadlay xoojinta ammaanka magaalada boosaaso isagoo sidoo kale hambalyo u jeediyey ciidamada puntland ee ku guulaystay dagaalka ay la galeen xarakada al-shabaab hadalka taliyaha ayaa ku soo beegmayay xilli magaalada boosaaso ee ciidamada BSF-ta ee ka soo laabtay dagaalkii suuj ay dib ugu soo laabteen iyadoona boqolaal dadweynaha ay gudaha magaalada boosaaso ay ku soo dhoweeyeen ciidamada geesiyiinta ee Puntland ee la soo dagaalamay soona afjaray cadawgii sida gardarrada ah ugu soo duulay deegaanka Puntland sida daraadeed waxaan u hambalyeynaa soo dhaweynaa dadweynaha aad arkayseen sida farxadda ay u soo dhaweynayeen annaguna aad ugu soo dhaweynaynaa uguna hambalyeynaa geesiyada Puntland ciidamada ka soo qayb qaatay dagaalkii halka ka dhacay oo guusha ku soo dhameeyay qaarna la yaqaan soo qabtay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa ilaahna waxaan weydiisanaynaa ilaahay inuu garabkooda iyo gaashaankooda daba adkeeyo imaanshahooda Boosaaso ay yimaadeen amniga Boosaasood bay ka qayb qaadanayaan awal way ka tageen haddana way ku soo noqdeen gacan bira bay ku soo qabeen awal ammaanka waa la sii hayay haddana waa la sii haynayaa si sharaf leh iyo agagaarkeeda Boosaaso iyo agagaarkeeda iyo geesiheeda cid kasta oo isku dayda amniga Puntland amniga gobolka bari amniga Boosaasood inay khalkhal gelisana gacan bira lagu qabanayo hadii Ilaahay idmo dhinaca kale deeq gargaar oo ka timi jaaliyada waqooyiga Denmark ee Puntland oo dhalatay ayaa maanta lagu wareejiyay taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaale sare cabdixakiin maxamed yuusuf oo uu ku wareejiyay duqa degmada waxaan halkan kaga gudoonay jaaliyada Puntland ee waqooyiga jaaliyada Puntland ee Denmark gaar ahaan qaybta waqooyiga Denmark ee Aarhus oo ugu deeqay ciidamada Puntland ee dagaalka ku jira kuwa furinta hore jooga ayay wax ugu deeqeen 500 oo kartoon oo timir ah iyo 165 kartoon oo waxay tahay kalluun taas oo muujinaysa isku duubnida iyo wadajirka bulshada Puntland guud ahaan meel kasta ay joogaan dalka dibadiisa iyo gudihiisa taliyaha qaybta booliska gobolka bari si uu gaarsiiyo ciidamada Puntland ee furinta hore jooga taliyaha ayaa gaarsiin doona insha Allah taala dadkii soo dhiibay caanaha iyo kalluunkaas oo soo dhiibay in uga qayb qaatay dagaalka lagu jiro Puntland ee kula jira cadawga soo gardaraystay al-shabaab iyo waxa la wixii kale oo soo bahaystay oo dagaalka kula jiray dadweynaheeda aad baan ugu mahadcelinaynaa hadday tahay kuwa banaanka jiray hadday tahay kuwa gudaha jooga intii ka qayb qaadatay inta ka dhimanna waxaan u leenahay sidaas oo kale uga soo qayb qaata aad baan uga mahadcelinaynaa deeqdan ayaa midii ugu horeysay la soo gaarsiiyay ciidamada difaaca Puntland ee guusha muhiimka ka gaaray xarakada al-shabaab ee dagaalka kula galeen qaar ka mid ah gobolada Puntland Ahmed Nuun Puntland Times Boosaaso waa tara garaac hadda waxaan rabnaa xayaato ku soo dabaalano gudoomiye waxa way saxaafadii weeye adoo gudoomiye gobolka Nugaala oo haddana saraakiisha kamid ah waxaad ku guuleysatay inaad soo afjartaan maleeshiyadii markii ugu horeysay ka soo degtay halkan maxaa shacabka Soomaaliyeed ku daawanay leedahay shacab badan ba aad fariin kugu soo diray bogaadeen waxa leeyahay gudoomiye gobolka shacabka Soomaaliyeed oo daawanay waxa leeyahay waxaan u baaqayaa in dalka laga sifeeyo burcadimeedaas laguna dhiirado waad aragtaan oo ciidamada Puntland dalka wax ka sifeeya ciidamada Soomaaliyeed oo kalena saas waa yeeli lahaayeen waxaan aaminsanahay shacabka ka gaabiyay taageera ciidamada qalabka sida Cumar Cabdullaahi Farweyne adiga oo gudoomiye gobolka iyo ciidankaaga waxaad ku guuleysatay in al-shabaabtii
aad soo riyataan kadibna laga saaray garacad oo dhinaca kale u carnaa koonfurta maxay la macnatay in puntland ay al-shabaab ka adkaato iyadoo aan ciidamo amisom aysan garab keeli iyo taageero kale horta marka hore dadka puntland waa dadkii xirmada soomaaliya keenay waa dadkii ciidamada soomaaliyeed halbowlaha u ahaa waa dadkaan weligood la qabsan haddana urur diimeed oo burcadiimeedii ma qabsan karto in guul ay gaaraanna waa la filayey ilaahna waa kala saartay waxaa marka soomaali ugu baaqaya garacad keliya kama aanaan saarin 50 kilomitir oo gudaha baan ka soo saarnay ilaa iyo tawfiiqna waa geynay waa dhaafay waxaa jirta hadal hays aad ilaa iyo xalay baraha bulshada iyo media ay hadal hayeen oo aad maaragtay u adeegsatay kooxda duulaan ka soo qaaday waa jiraa haa ereygaasoo ah waa la soo xawlanaa anna waa sii xawlaynaa marka dad badan baa waxa weeye aad u soo dhaweeyey adu markaasi maxaad ula dan lahayd waxaa ula dan lahaa haddiina lagu soo tuuray soomaalida ma ku tuuri mayno hoos baan u tuuraynaa aad baa mahadsantahay waa guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne gaarigiisa iyo ciidankiisa ayaa la socda waa ku faraxsanna annagu kooxda wariyaasha ah oo maxamed una hogaaminayo aan joogno garacad runtii garacad waxa weeye madaxda ayaa ku sugan waxaan rabnaa inaan magaaladii balaan soo daawanno iyo meelihii shax lagu cabbi jiray shacabka oon tagayna la soo baashaalna marka inta kalena muuqaalada waxaa kala soconaysaan telefishinada iyo Puntland Today waad kala soconaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Thank you.